inaad boqolaal saaxiib samaysataa ma aha wax cajiiba, balse waxa cajiiba inaad samaysato hal saaxiib kaasoo mar kasta ku dhinac taagan, xataa haddii boqolaalkaasiba ay kaa soo horjeestaan. saaxiibada wanaagsani waa kuwa midiba midka kale uu ilaaliyo ama uu xanaaneeyo. saaxiibada isu dhowna waa kuwa midiba midka kale uu fahmo, balse saaxiibka dhabtaa waa ka kuna fahma kuna ilaaliya. saaxiibka dhabtaa waa ay culus tahay in la helo, haddii la helana waa ay adag tahay in laga tago, haddii laga tagana macquul ma aha in la ilaawo. saaxiibtinimada macnaheedu waa isfahan ee ma aha heshiis, waa iscafin ee ma aha isilaawid, waana xusuus hadha xitaa haddii uu xidhiidhku go'o. saaxiibka dhabkaa waa ka kuu xanaaneeya sida hooyada, kuula kaca kufa sida aabbaha, aad ku faanto sida walaasha, kaa xanaajiya sida walaalka, kuuna jecel in ka badan inta la isjeclaado. saaxiibka runta ah waa ka dhibka ku haysta ka akhrista indhahaaga, xilli ay dadkoo dhammi aamineen farxadda ka muuqato wejigaaga. inaad daacad ahaataa kuma siinayso saaxiibo badan, balse mar kasta waxay kaa dhigaysaa mid saxsan.